السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا يوتيوب channel كينا وانيغو ولاشين حفصة هالكا اتيغا داوانيسان وحفصة channel على برنامجكن وحا هالكن إذين سو قليا انيغو ولاشين حفصة سيد إن شاء الله سو دوادا سحابتي إذا ميلو الواad joogtiin haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe iyo noo saar like dhiirigelin ayay noo tahay la wadaaga asxaabtaada fikrada aad u baahan tahay inaad ku soo kordhiso commentiga hoos igu reeb mowduuca aad u baahan tahay mowduuc walba inaan ka hadlo commentiga ayaad nooga reebi kartaa insha Allah soo dhawaada aad aniga mahad celinayaa sida wacan oo quruxda badan aad ii soo dhaweyseen waxaan idin raali gelinayaa muuqaalka xoogaa duuniya cajiin waaye karaali hada telefoon leh ku duubaa insha Allah casiraan ula adimoyaa xoogaa codadka maqleysaan sabaxan kale waa idin raali gelinayaa insha Allah soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo bisha barakeysan ee Ramadaan insha Allah Ramadaanka ayaa wax yar ka hadli doonaa bisha barakeysan ee Ramadaan bil waxa waaye aad u culus waaye insha Allah marka waxaan rabaa inaan ka bilaabo bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalmaha kale waxay ku kala duwan yihiin iyo dadka si u arkaan yacni waxaa jiro haddii aan ka bilaabo dumarka amba ragga Soomaaliyeed amba dumarka yacni waxaa jiro kuwa hadda aan arko dumarkii u badan yihiin isticmaalka social media noocyadiisa kala duwan waxaa arkaysaa gabdho isoo dhigaayo ayagoo qaaban timahooda qaaban yahay jirkoodana qaaban yahay subxaanallah ayaa arkaysaa Ramadaanka marka la gaaro ayaa waxa arkaysaa gabdhihii oo dhahayo bil barakeysan oo Ramadaan la joogaa halaga faa'iideysto waa sax waaye halaga faa'iideysto waan ka faa'iideysanaynaa insha Allah waxay dhahayaan halis asturo jirkaaga asturo bisha barakeysan Ramadaan heesaha haliska daayo filmaanta xunxun haliska daayo لأنه رمضان لوgu jiraa Ramadaan waxa waaye bishii Allah subhanahu wa ta'ala quraanka soo dejiyo waaye waa run bil weyn waaye yacni Ramadaanka marka soo dhawaado Ilaaha la caabudaya wax walba oo raali ka yahay la sameynaya waa laga faa'iideysanaya sax waaye laakiin maalmaha kale yacni Ilaah ma la caabudaya miya yacni wax Ilaahay ka reebo ma ka hareysid miyani يعني سبب بش بركيسان ee Ramadaan kaliya wax Allah subhanahu wa ta'ala ka raaliya kaaga aad u sameeysid Ramadaanka marka la joogo iyo marka Ramadaanka aan la joogin waxa loo baahan yahay inaad Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnaatid mar walba aan noqoto gabar muslim amba wiil muslim Allahiisa ku xiran mar walba wuxuu raali ka yahay inaad sameeynaayo marka midaas ayaa ah point aad u muhiim waaye pointigaas aad u muhiim u yahay dadka oo kaliya ka faa'iideysanaya bisha barakeysan oo wax walba Allah subhanahu wa ta'ala raali u yahay sameeynaayo mar walba walaashayda qaaliga amba walaalkayga qaaliga oo noqo mar walba mid Allah subhanahu wa ta'ala raali geliya noqo mid mar walba asturan afkiisa ka nabad galo muslimiinta noqo dadka Ramadaanka marka la gaaro afkooda gaaro dad maxamtaan ayaga dhan nidaam waaye mar walba sida noqo mar walba afkaaga umada muslimiinta ka nabad galo nabigu wuxuu dhahay qofka muslimka ah waa al-muslimu man sallima al-muslimuuna waaye qofka muslimka ah waa kan muslimiinta oo dhan ka badbaadiyay gacantiisa iyo afkiisa kan ka badbaadiyay noqo mid mar walba afkiisa iyo gacantiisa yacni oo ka nabad galo carabkiisa من لسانه ويده نقو كان مر والبا عربكيسا iyo gacantiisa ay muslimiinta ka nabad galaan noqo dhanka kale marka Ramadaanka gooniga aan u hadlo waxa waaye shahrullahil muharram waaye bishii barakeysan naxariista badneed ajarka badan la tacbanaayay oo quraanka la soo dejiyay waaye nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa haatee wuxuu dhahay man qaama ramadaanu iimaanan wa ihtisaaban qufira lahu ma taqaddama min dhanbihi insha Allah xadiiskaas waan qaadan doonaa nabigu wuxuu dhahay man qaama qofkii u istaaga Ramadaan u istaaga iimaanan asigoo iimaan leh oo ihtisaaban xisaabsanayo qofir loo waa loo dhaafiyaa ma taqaddama wixii uu hormarsado oo min dambi waa loo dhaafayaa qofkii Ramadaan istaago asigoo iimaan leh xisaabsanayo wixii dambi oo hormarsaday
waa loo dhaafayaa laannahu bisha barakeysan ramadaan waxaa waaye qofkii yacni u soo istaago asigoo iimaan leh dembiyadiisa dhan waa laga tirtirayaa bisha barakeysan ee ramadaan baryada yacni inta badan oo ilaah aad baryaysid waa laga ajiibayaa insha allah alle subxaanahu watacaala hanaga dhigo kuwii laylatul qadriga ilaahay waafajiyo insha allah aan ka faa'iidaysano bisha barakeysan ee ramadaan 12 bilood ama 11 bilood hal mar ay yimaadaa dad nasiib ayay u leeyihiin inay ramadaanka soo gaaraan dadna nasiib uma lahan way geeriyoodaan ilaahay bacalaf uuma dhin dadna waxaa arkaysa ayagoo nasiib u helay oo joog bisha barakeysan xay ee nafta ku jirto yacni kaarleyska aan ka faa'iideysanin walaal sidaa ma aha bisha barakeysan ee ramadaan dad ayaa nasiib u helin adiga haddii aad nasiib u yeelatay ka faa'iideysa bisha qaali waa nasiiba u yeelatay dad aan nasiib u yeelanaa jiro ka faa'iideystay insha allah bisha barakeysan ee ramadaan ma aha wax halkan lagu soo koobi karo ma aha walaalayaal aan ka faa'iideysano insha allah mar walba noqo mid ilaah subxaanahu watacaala raali geliyo noqo mid awaamirtiisa qaata noqo insha allah wixii laga reeba ka reebtaano wixii lagu farane sameey insha allah halka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel ala barnaamijkana waxaa idin soo gudbiyay isla anigoo ah Xafsa fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar insha allah like dhiirigelin ayay noo tahay la wadaag asxaabtaada wixii wanaagsan way wanaagsantahay ilaa la wadaagtid nabiga wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam wixii aad naftaada la jeceshahay la wadaag asxaabtaada noqo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi noqo mar walba noqo waa kugu dhiirigelinaya noqo midkaas noqo mar walba walaal insha allah la wadaag asxaabtaada fiidiyoyadeeda saaran igu sheegay aaday u gaagaaban yihiin insha allah soo dhawaada asxaabtiin u sheer gareeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh